السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال إذا لهانتي بميل البعض نقل السعطان كسر دواده مركليو برامجك سماوده أو الله بحليدا أو كلا أن يدينسو تبينو برامجك سماوده وحات كلا سعطان تلفزيونك قرنك الصومالية وحنا أنت بدنا برامجك سماوده أنا كفا فاهنا qodobada ama waxyaabaha muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed amaba mudan in loo faahfaahiyo gaar ahaan marka laga hadlayo aragtiyada laga qabo kooxaha maleeshiyaadka al-shabaab iyo sida ay ula dhaqmaan bulshada Soomaaliyeed oo iyagu inta badan dhibaatooyin kala duwan kala kulma kooxdaasi al-shabaab ayaana inta badan barnaamijkeena samawade aad markaasi ku daawataan barnaamijka waxaa idin la socodsiinayaa anigoo Xali Cabdulqaadir Cali toddobaadkanna waxa ay nagala qayb galayaa barnaamijkeenan samawade Sheekh Cabdullaahi Axmed Garuun oo ka tirsan xarunta Irshaad ee aragti isdhaafsiga waxaana markaasi barnaamijka inta uu socdo daawadayaasha aan u soo gudbin doonaa aragtiyo muhiim ah oo isleenahay way ka faa'iidi doonaan si ay markaasi uga gaashaantaan dhibaatooyinka kala duwan oo inta badan uga imaada dhinaca kooxda al-shabaab haddaba mowduuca maanta barnaamijkaana ku soo qaadan doono hadduu Allah awoodda sare leh oo ogolaadana waxa uu noqonayaa sida aanu la soconno waxaa jira lacago markaasi baad ahaan ay al-shabaab ka qaadaan dadka shacabka oo ay ugu yeeraan waxay iyagu u yaqaaniin zakawaad taasi oo u dhiganta lacago si baad ah dadka looga qaado haddaba lacagtaasi halka ay ku baxdo iyo sharciyan sida dadka bixinaya kaalinta ay ku leeyihiin qudhooda dhibaatooyinka lacagtaasi loogu geysto bulshada kale ayaan barnaamijka inta ku gudi jirno ku eegaynaa marka ugu horeysa bal Sheekh Cabdullaahi waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkan samawade waa ku dhawaad aad ma santahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين بهذا برنامجك وعلي أديك الرئيس يفرسم يغانا دبا لما أنتم بوا إذن مهد علينا يا وأنا إن شاء الله تعالى برنامج كان مهم كا واحتر أولي بالشدة الصوماليات إسكالا قيب قادة دونا تقغدا هير waa tahay Sheekh Cabdullaahi sida mowduucan uu yahayba inta badan waxa dhacda in al-shabaab ay lacago baad ah ay dadka bulshada Soomaaliyeed ay ka qaadaan lacagtaasi oo ay ku tilmaameen inay tahay lacag zakawaad ah balse ay u muuqato inay tahay si sharci daro oo baad ah dadka looga qaado bal mowduucan si ballaaran waxa inoo faahfaahaysaa lacagtaasi ay shabaab ay dadku ka qaadaan ujeedka iyo waxyaabaha ay ka damacsan yihiin bal sharaxaad inaga sii aragtiyaan بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى حون ليه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل آياتك لو حيهد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إسلامك سجود وحوي وحاجر حقوق حق قف كستأهل الله قف كمسلم كحقوق أولياء وحاكم هذا حق الملكية الفردية أيالي هذا وآدي إسلامك إلالي هنتدي سأسقى أسكالة يعني سي لو إلالي هنتداسنا وحوي حين داب حماية وين أيالي سي وقفك مثلا مواد أركتي هدي قف أو كحضو حتى ياس وحكلا يعني كلازمة عقوبة أما حدود وقعن قوينة هدي حوق يبرعنوا إلى جرته وهو وحد الحرابة أو كسي يعني كسي حوقا أو كسي أذك هدي مركب مر البابا سيدا سالو أتكي وحونا الله الله سبحانه وتعالى نقالها أن بحولها دحدينا سيقر دراها كوكلا قادننا سيدا لغو كلا قادا كرا وحوي وكنعسي وكله oo la isaga raadiyahay oo qofku wixiis inaad ka iibsato inaad xoolahan qof yani dhinto waalidku dhaxal uga hesho inaad shaqaysato shaqo joornaad uga qaadato siyaabaha dhaqaalaha ku qaadan karto waa siyaabo noocaas ah oo sharci islaamku banaysay laakiin handadaad iyo xoog iyo in lagu qaato marnaba lama ogola
wuxuu nabigu leeyahy salaatu llahi wasalaamu caleyh kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduh. waa waxyaabihii shareecada islaamka aad iy aad u ilaalisay oo maqaasidu shariica ahay. qofka naftiisa laguma xadgudbi karo oo dhiiggiisa lama daadi karo, maalkiisa si gardaraa laguma qaada karo, sharaftiisana laguma xadgudbi karo. wuxuu nabigu leeyahy salawatu wasalaamu caleyh weliba qofku waxyaaba ou xataa asigii ku siinayo laakiin ou ka qabo usan raalli ku ahayn ma xalaalkuuma ah. laa yaxilu maalu mri'in ilaa bidiibi nafsin minhu. yacni si naftiisu raalli ku ah oo diib ku ah haddii uusan bixinin waxa weye marnaba maalkaasu xalaal ma noqonayo, waxa weye waa xaaraan bay noqonaysaa. maxaad ogaanay marka adiladaas markaan fiirino iyo axaadiistaas aayadahaas dhammaantood siyaabaha kala duwan oo kooxda shabaab ay bulshada soomaaliyeed lacagta ama dhaqaalaha uga qaado dhammaantood waa yacni wax xaaraam ah oo sharciga aan ku banaanayn. way fara badan yihiin marka siyaabahay u qaadaan. mar waa sidaad sheegtay oo waxay ku qaadaan magac la yidhaahdo zakawaad oo kala duwan oo wixii yani xoolo xataa mararka qaar aan zaka ka yani aan ka go-in laga qaadayo. mar sanadkii 2 jeer ama 3 jeer in lagu soo laabto laga yaabo. mar iyadoo mid uu kaa qaaday mid kale meesha loo soo magacaabay haddana uu leeyahay qofkii keen sidaas oo kale uu leeyahay. mar inta qofkan laga rabay in ka badan laga qaadayo oo magacaasna maray u adeegsadaan. marna waxyaabo kaloo la yidhaha tabarucaad oo dhaqaalaa oo sanadkii 5 mar 4 mar bulshada deegaankaas degan lagu soo qoro oo la leeyahay adinka waxaa laydinka rabaa $100,000 200 milyan sidaa oo dadkii loo qaybiyo. mar waxaa weeye waa wadooyinkaa la fadhiistaa oo badeecadii iyo gaadiidkii iyo wadada marayay oo dadkii ama ay xoolihii soo safarsanayeen ama yani ganacsigii raashin kale u tegayay iyo gaadiidkooda intaba ayaa la canshuuraha oo dhaqaale oo sidaa looga qaadaa. mar kale waxaa sii dheer dadka shaqaysta iyo dadka caadi xataa oo shaqaalaha u shaqaysta ama yani xoogsatada oo la isleeyahay waxbaa soo gala ayaa waxaa leeyahay waa lahandada waxaa leeyahay inaad bishii intaa bixisaa ama xataa dadka meelaha goobaha ganacsiga leh. marka way fara badan yihiin oo wadooyin fara badan ayaa lagu qaada. waxaa laga yaabaa qofkan halka qof in laga qaado si 4 nooc laga qaado. masalan ba mar wuxuu baxshay zaka ahaan, mar wuxuu bixinayaa taakulayntii la sheegay oo bulshada guud ahaan yani loo soo dhiibay meelaha ay joogaan iyo odayaal dhaqameed iyo waxbay samaysteen iyo dad guddiyay samaysteen waxaa leeyahay lacagtaa ka soo qaada dadkaas. marna xoolihii zaka ahaan u bixinaa, mar tabarucaadaas u bixinayaa, mar wuxuu doonayaa inuu safro wax soo iibsado wadadiiba haddana sidaa looga sii qaadanayaa. yani marna siyaabo kaleo shaksiyaad ayaa hadadayo tahdiid ayaa wax looga qaadanaya waxyaabo kale oo gaar ah. marka qaababka loo qaadan aad bay u fara badan yihiin. dhammaantoodna waa wax shareeca islaamku ay xarimtay. nabigu salawaatu wasalaamu caleyh xajatul wadaac markii uu dadka la dardaarmayo khudbadii ugu dheereed oo maalintaa jeedshay oo tiradii ugu badneed oo muslimiinana u jeedinayay waxay ahayd oo kamid ahayd qayb yar oo kamid ah ayuha nnaas ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. yani waxyaabahaas marka oo dadka inay xaaraam ka yihiin nabigu u gudbiyey oo yani ay kamid tahay in dhiiggii laysdilo, in maalkii la dhaco, in sharaftii dadka lagu xadgudbo. intana kooxo way sameeyaan. hadda waxaan ka hadlaynaa dhaqaalihii oo maanta aan ka hadlayno waxaa qayb yar bay ka yihiin. dhaqaalaha haddaad diido waxay dadku ka baqayaan waa dil oo dhiiggii baa sidaa u banaanaanaya. waxaa mararka qaar sharaftaada lagu xadgudbayaa oo waad ogtahay dadka qaarna xaasaskooda lagu horwataa. gabadhaada haddii la arkoodo iyadoon ma diidi kartid yani waxaa lagu leeyahay ilaa sidaas sameey waa la iska kaxaysanaya haddii kale. marka inahaasoo dhanba waxaa weye waa xadgudub, waa xadgudub oo shareeca islaamkana xadgudub ku ah, bulshadina lagu xadgudbayo. yani mataqaanaa isla markaasna magac diineed la adeegsanayo oo waxaa kasii daran
yani dembigaas la gelayo dadka laga gelayo waxaa isaguna kasii daran magacii islaamka marka magacii diinta marka waxaad halkaa ka dareemeysaa waxyaabaha la yidhaha maqaasidu shariica islaamiya oo xifdu diin ay ugu horeyso diinti sidaasaa loogu tumanaya magacii diinta ayaa laga been abuura markaasaa dadka lagu waxeleynaya intii kaleo xifdu nafsi iyo xifdulmaal waxyaabahaasna waaba way kasii daran yihiin waa iyagona sidaasaa ay ugu tuntaan marka waa dhibaato guud aada iyo aad waa tahay marka sheekh cabdullaahi lacagtaasi dadka laga qaado waxaa la aaminsan yahay in shabaab ay u adeegsadaan in lagu fuliyo waxyaabo bulshada kale dhibaatooyin u ah sida in dad lagu dilo ama qaraxyo lagu fuliyo su-aashiis weydiinta mudan oo bulshadu ay tahay in loo faahfaahiyo waxay tahay dadka iyagu laftigooda dhiibaya lacagahaasi hadhowna dhibaatooyinka bulshada kale loogu geysto ama qudhooda aysan ku badbaadin xitaa lacagtu hadday bixiyaan oo dhibaato kale ay lasii kulmayaan kaalin intee la eg ayaa las dhihi kara waa ay ku leeyihiin dhibaatada lacagtaasi dhalisa horta yani dhibaatada qof dulmi wada hadda qofka ugu kaalmeeya waxaa way dembiga dhinac buu ku yeelanayaa si guud markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ku dhiibaan qanaaca oo iba yani arrimahaas la dhacsan yihiin inkastoon isleenahay dadka noocaas waxay noqonayaan tiro yar ama hadda maba sidaa uma sii jiraan hadday hore u jireen ila xilligan ma jiraan isleenahay ugu horeyn marka horta qofka maxay shariica islaamku ka qabtaa waxyaaba hadda aan ka hadlayna oo nafsadiisi diintiisi maalkiisi sharaftiisi haddii lagu xadgudbayo maxay ka qabtaa horta shariica islaamku yani dhinaca haddaan ka fiirino waxay ka qabtaa inuu isdifaaco oo nabigeyna wuxuu lehy salawatu llahi wasalaamu caleyh man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid yani qofka haddii xaaskaagi iyo gabdhahaagi iyo halkaa in hortaada lagula yani lagu xadgudba la rabo waad difaacaysaa haddaad ku dhimato shahiid baa tahay midkaa horarkaahu hadduu dhinto asaga waa ahlu naar maalki waa sidoo kale waad inaad difaacdo sharci islaam kuu banaysay oo sidaas baa shahiid ugu tahay haddii lagugu dilo midka kalena waa ahlu naar oo nabigaa tilmaamaya nin baa nabigu weydiiyey xadiis abu hureyra warinayo nabigu u yimid ninkaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahi ka waran ara-ayta in jaa rajulu yuriidu akhda maali yani haddii nin u yimaado oo rabo inuu xoolahayga ku qaato si gardaraaho xooga ka waran nabigu wuxuu yihi falaa tucdi ha siinin hadadaad kastoo kuula yimaad falaa tucdihi maalaka wuxuu leeyahay ninkii su-aal buu sii weydiiyey wuxuu leey ara-ayta in qaatalani hadduu ii gacan qaado ila dirirayo u dilaayo ka waran nabigu wuxuu yihi qaatilo la dirir iska difaac ninka baa su-aasha sii wada aada buu ninkaas u caddeeyey yani islaamka dadka muslimiinta masaladan uga caddeeyey hadduu idila ka waran lo ara-ayta in qatalanii hadduu idilo iga xoog bashu idila ka waran nabigu wuxuu yihi fa anta shahiidun waxaad tahay shahiid yani gardaraad ku dhimatay shahiidkaas shuhadadu way kala baxaan shahiid dunya shahiid alaakhira waa loo kala saaraa iyo shahiid dunya walaakhira shahiid dunya walaakhira waa midkaas dagaalka ku dhinta oo asagoo dhiigiisa lahon la dhaqayn oo halkaa la aasayo shahiid dunyana dadka noocaan oo kale iyo dad kale axaadiis kale tilmaantay oo ayay soo gelayaan marka wuxuu yihi shahiid baa tahay oo shahiid alaakhira sidaas baad ajirka shahiidaad ayaad leedahay heleysaa uu sii weydiiyey wuxuu yihi ara-ayta in qataltu rasuulka ilah ka war haddaan dilo asaga muxuu yahay anugu haddaan dilo asaga ile waan isla xarbinaynaa hadduu idila waan ku weydiiyey haddaan asaga dila ka waran nabigu wuxuu yihi huwa fi naar waa ahlu naar xadiiskaa imaam muslim baa warinaya oo soo saaraya marka ugu horeyn qodobka ugu horeeyaba intaanan ka jawaabin su-aasha qeybteeda labaad waxaa weye waa qofka muslimka ah wuxuu xaq u leeyahay una sharaf badan inuu isdifaaco oo maalkiisi iyo naftiisi iyo yani cirdigii sharaftiisi ehelkiisi wixii ku xadgudbayo o dhan inuu iska difaaco gobanimona oo ku dhinto ama sidaa uu ku dhinto haddii wax ku dilan isagu dembi ma laha waxaa soo hortay
haddii uu isleeyahay waa laga awood badan yahay oo isagu yani keligiis haysto ama hub lala kor taagan yahay isagana oo gacmo raaraco usan hubka haysan sidaa waxaa u bannaan waa yani waa awood sheegasho waa qasbiyaa la yidhahda waa lagu dhacayaa waa burcadnimo inuu xoolihiisa naftiisa ku badbaajo oo ima ay kala tahay waa in lagu dilo iyo inaad bixiso oo soo saarto waxaa weye waa marka asoon raalli naftiisa ku ahayn oo xataa markay la gadoomaan sida uga soo dhacsan karo iyo hadduu gadaal ka weerari karayo hadduu sidaa isaga difaaci karayo sidaa yani ah waa inuu yani markaas way u banaaneysaa waxa weye waa waxaa keenta dhibaataa keentay dadka muslimkaa marka oo muslimiinta oo laga yaabo waxyaabihii inay isaga qancaan oo isagoo heli kara xataa deegaankan iyo halkan inuu ka wareerigo ayagoo heli kara in intiis urursadaan waxaan yac iska dhahaan oy dhinac iska marshaan yani saaga raalli noqda oo runtiina ay dhacayso sidaas sheegtay khasaarihii hantidaas hubkii lagu gaday iyo ama dagaalkii lagu horiyo kuma sii jiraan kuwan magaaladu dadka baadiyaha waxaa kasii daran dadka magaalooyinka jooga maxaa yeele magaalooyinka qaraxyadu magaalooyinka ka dhacaan miinooyinka iyo waxyaabahaas oo infijaaraadka waxaa magaalooyinka ka dhacaan dhaqaalihii baa lagaa qaaday haddii xataa gobol lagaaga soo qaado adigoo iska soo safarto magaalada safraysa ayaa gaarigii yani qarax la kulmay waxaa laga yaabaa hantidaadi inay halkaa ku jirto haddii adiga aadan la kulmin xataa hantidaadi qeyb kamida oo cirbadba aad ku yeelatidi ayaa dad muslimiina lagu dhibaateynaya runtii waxay waa dhibaato weyn oo doqonnimona ay ku jirto oo wixii ood ujeedo hadda markaad bixiso aadan ku nabadgelayn oo ama ehelkaagii ama asxaabtaadii ama adiga nafsadaaduba ay khatar ku galeen lagu xiileynayo inaad yani dhiibto oo haddana meeshii sii fadhideen marka la dhiibto oo haddana lagu soo noqday sii dhiibto le mu'minka waxaa la yidhi hadii mar god laga qanin waxaa la rabaa mararka kale inuu yani ka tabaabushaysto oo ama meesha ka fogaado ama si isku difaaci lahaa ama ay tashadaan xataa dadkaas oo ganacsiga ama xoololeyda ama beeraleyda ay tashadaan oo yani isdifaacaan sida horta la gudboono wanaagsan waa sidaa waxaan u kala qaadaynaa marka hantidii laga qaaday qofkan haddii dadka wax lagu yeelay haddii marka uu bixinayo qalbigiisu ama uu si un ugu qanacsanaay ama uu u haystaba waxaan inay wanaagtaho si un raalli uu ku baxshay oo diibu nafsi ay ku jirtay dembigaas iyo wixii oo dhan waxbuu ka leeyahay dhinaciisa midkii wax ku qarxiyey iyo isagu waa isku mid haddii laga awood bajay oo nafsadiisa sidaa uu yani uu ku bixiyana hadda waxaa weye waa qof laga awood baja weye laakiin waxaa dhibaata ka imaaneysaa haddii uu yani qof iskala qabsado uu noqdo wixii usii diyaar garo wixii sii bixihayo diyaar ula ah oo mar walba sii diyaarinaya hadduu yahay waa dhibaato waa yani haddii dhibku marka ugu dhaco waa la yaqaanaa dadku gurigan haddii caawa lagu dhaco reerku ama wuu ka guuraa ama meelihii albaabadii laga soo galay u iska dhisaahoo iska adkeeya haddii tuuga ku dhacdo laakiin yani si meeshiioo furan haddana ma ogolaanayo dadku way ka taxadiraan taxadirka noocaasu marka waa inuu jiraaho qofku haddii uu mar yani waxyaaba sidaa looga qaado oo isku dayaa inuu meesha amba ka wareegsado ama si isku difaaci laha ku talagalo waa tahay su-aasha kale xigta aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay marka laga hadlayo qaadista lacag canshuur ah oo bulshada laga qaado ama wax loo yaqaano zakada la bixiyo tusaale markaan usoo qaadano oo dalalka caalamka ka jira gaar ahaan dunida islaamka markaan tusaale usoo qaadano zakada marka la bixiyo ujeedku waxay tahay in lagu celiyo bulshada inteeda kale oo dhibaataysan oo iyagu aanay awoodin in noloshooda ay maareeyaan ayaa dib loogu celiyaa zakada dadka laga ururiyo dhinaca kale waxaa jirta canshuuri lacag la qaado oo iyaguna isla bulshada dib loogu celiyo ha noqoto wado burbursan ha lagu dhiso iskuulaad ha lagu dhiso xarumaha ma aragtay oo fidinta diinta islaamka iyo shareecada lagu barto ha lagu dhiso si kasta ay noqotoba marka su-aashiis weydiinta mudana waxay tahay sharciyan qaadista howlahaasi ma waxaa xaq u leh dowlad markaasi jirta ama shaksiyaad ama kooxo inta is urursadaan waa ay qaadi karaan iyadoo aanay jirin nidaam sax ah oo ma aragtay
ay ku bixinayaan qarshaadkaas ee bulshada oo ay ka qaadeen sida tan hadda shabaab ay ku dhaqmayaan oo kale. aada u mahadsan tahay. barnaamijka su-aasha horta waa su-aal aad iyo aad u fiican. zekada qaadisteeda waxaa iska leh marka hore laba qayboodba, yani waa lagu dhiibi karaa. qofku isagu waa iska bixi karaa markii xilligeedii la gaaro, yani inuu isagu iska bixiyo oo qadarka ku waajibahay hadduusan aqaanin culamada weydiiyo, oo dadkii loogu talagalay oo masaakiinta iyo fuqarada ay kamid ahay oo deegaankiisa uu siiyo, sidaas way ku gudaysaa. sida kale waxa weye waa nidaam dowladeed oo maamul oo yani sidaas inuu qaado sida dowladda islaamiga ah bay u qaadi jireen, oo halkaa yani dadka laga qaadana lagu celisho. maxaa le nabigu waa ki yihi salawatu llahi wasalaamu caleyh, oo zekada marka uu tilmaamayey markii uu halkaa Mucaad u diraayo dhinacaas Yaman iyo inuu halkaa waxa weye yani waa zekadu laga qaadayo inay tahay sadaqa tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim. waxa weye waa sadaqo laga qaadayo dadka waxhaysta laguna celinayo dadka fuqarada fuqaraa lbeled ah, ayagaa iska leh. aayadda qur-aanka baa tilmaantay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin walcaamiliin calayha ilaa aakhiri alaaya. 8 sinfi baa la tilmaamay. 8daas sinfi mar walba lama wada helo, wixii ka jooga deegaankaas ayaa iska leh oo fuqaradaasa. dadka qaadaho caamiliinta ayaa nisaab in ku leh oo markaas nidaamkaas dowliga. wixii kale waxaa waye waa dadka deegaanka oo yani masaakiintaas iyo fuqaradii iyo noocaas ayaa iska leho la siinaya. waxaa kuu soo hartay kooxa is abaabulay oo hub iska qaatay, ayagu xoog ma ku qaadi karaan? ma ku qaadi karaan, sharci islaamku uma ogola. kooxa fallaagaa oo noocaasoo hadday is abaabulaan oo yidhaahdaan annagaa wax qaadayna, zekana ma qaadi karaan, waxyaabihii xuduud ma fuli karaan, dad wax ma xiri karaan, wax ma maamuli karaan, tasarufaadkoodao dhanba ila waa fallaago. waxaa iska leh nidaamkaas, nidaamkii dowladdii baa iska leh. dowladdii oo islaamiga ahay baa iska leh, oo inay iyadu dalka ku hogaamisay ay tahay, inay shaqadaas ay qabatay ay tahay, maamulkeedii halkaa. laakiin koox annaga midaho amba sida dhowr qof inay si sabaabusho xaafaddaa qabsato, xaafaddaanaan ku fulinaynaa sidaa yani oo haddana fallaaga ahoo dowladnimadii iyo nidaamkii la dirirayso dagaal sidaas ah ma banaana. laakiin meesha laysku haysto oo badanaa yani wax layska weydiiya waxay tahay, hadda kooxdaas xoog bay wada tahay, haddii ay kaa qaado oo adigu zekadii wixii qadarkaaga ama ka badan zaaid ha kaa qaadee, yani ma kaaga baxaa oo zekadii sidaa ma kaaga baxday, maadaama aysan ku bixinayn meelihii loogu talagalay oo inay u adeegsadaan hub iyo dagaalo iyo fidno iyo waxyaaba bulshada ay yani u badan tahay, oo mid labaadaad sii bixinaysaa oo sidaa beri ma ku noqonaysaa yani qoortaadii, mase kuma noqonayso. halkaasaa su-aal layska weydiiyaa. macnaha inay ayagu qaadi karaan taas, inay aysan qaadi karin oy baadil ay tahay qaadistoodu layskuma haysto. laakiin qofkan maadaama qadarkii uu iska bixiyey, gacantaas aan ahayn nadiifka oo ka qaaday, ma lagu leeyahay qofkii deynkii, mase halkaas bay ayaa yani mas'ale culamadu ay ka hadlaan oo yani qolaba ay si ay tiraahdaa, qolana ay yihaahdaan yani maadaama xaqi uu bixiyo isagu oo yani waxay u taallaa ninkan meesha uu ka bixiya si u taallaa. waxay lamid tahay sadaqo. dad baa waxay yidhahdaan mararka qaar oo qaraabanah ku qaraabanayo, masaajid baan dhisaynaa, masaajidkan halkaa haddii uu bixiyo uu yihahdo intaana masaajid ku darsaday oo ayagu iska cunaan, isaga waxay ula mid tahay isagoo masaajid ku darsaday ula mid tahay. marka mar hadduu niyeysto baxshay waa sidaad ba yidhahdaan. qaarna waxay yidhaahdaan maya, waxa waye waa wax kalou sii bixinaya, wuu ujeedaaba meesha lagu bixinaya, hadduu dareemaayo inay halkaas ay tahay, yani waa ilaa heerkaasay ay ka taagan tahay. laakiin layskuma haysto marnaba ayagu inaysan xaq u lahayn inay qaadaan, oo ay gardaro tahay, oo ay lamid tahay
baadan kale oo lagu celcelinayo dhinaca kale haddaan ka fiirin xataa si saxa uma qaadaan qofki wixii laga rabay wax ka badanay inta badan ka qaadaan xoolaha iyagaa dhex gala inta yar nabari neefay ka soo qabsadaan yani waxaa jira meeshii qurbac yar ay ka aalad geelkan ranti weyn bay ka qaadaan meeshii ceesaan yar laga bixila neefka ugu weyn orba ilaa xoola ay safarsadaan oy iibsadaan oo ugadmaay rabaan marka aan ka hadlayno dadkaasi lacagaha sida baada ah looga qaado waxaa la aaminsan yahay in suurtagal ay tahay inay ka baqanayaan awoodo kale oo iyagu ka sareeya xoog ha lagu maquuniyo marka kaalinta u banaan bulshada inteeda kale oo madax banaan ee ku aadan in dadkaas ay helaan fursado wacyigelin ah oo markaasi lagu wacyigeliyo si maskaxdooda loo bedelo ayna u helaan wadiiqooyin sahla inay ka dulqaadaan dhibta haysata maxay tahay kaalinta bulshada kaga aadan tusaale adigu waxaad ka tirsan tahay xarunta irshaad ee aragti isdhaafsiga hay-adaha noocaas u dhisan oo kaleeto maxay tahay kaalintooda kaga aadan in dadkaasi la garab istaago runtii waa kaalin muhim ah yani in bulshada la gaarsiiyo wanaagga yani xumaha looga digo gaar ahaan afkaartan qaldan xafiiskaas waxaa weye waxyaabaha inta badan xoogga saaro waxaa weye waa aragtiyaha qaldan si uu u sixi lahay macnaha waxyaabaha dadku aamineen oo ama kooxahaas ay ku shubeen oo qaladaadka aad iyo aad yani u xun oo islaamka soo horjeeda in laga saxo fikradaha marka saxidda u baahan oo in la saxo u baahan waxaa ka mid a midaas inta badan cabsi ku qotonta qofka bini aadamka mar unbau dhimanayaa waktigiisa ka horna qof dili karta ma laha marka qofku inuu cabsi mar walbaba oo bini aadam ka baqo oo yani waxyaaba dembi kasoo gaarayaan ama wixiisii u jeedo oo bulshadii lagu dhibaateynayn uu sidaa ku bixiyo runtii waxaa weye waa wax aan wanaagsanin wey haddii uu xataa mar ay sidaa ku dhacday inuu joogto oo wax ay noqdaan iska socdo routine u noqdaan oo mar walba bil walba laga qaadihayo waxaa weye waa ayadana waa kasii xun tahay marka waan sameynaa wacyigelintaas oo bulshada qeybaheeda kala duwan ayuu xafiiskaas xarunta irshaad ay u qabataa yani kulamo oo kala gedisan oo mar dhaqanka loo qabanayo mar yani dhalinyaradii mar yani dad isku jiro aqoon-yahan iyo qeybaha bulshada kala duwan ah culamaa addiinka naftooda iyo halka ay ku jiraan marka bulshadaas laysu keenay oo meelaha lagu qabto inta kale waxaa weye waxaa la adeegsadaaoo kulamadaas meediyaha oo yani bulshadu halkaa dal iyo dibadda ba gaarsiinaya oo ay ka dhegeysanayaan kana daawanayaan laakiin waxaa mushkila ka taagan tahay meelaha kookooban ay kooxahanu joogaan uma ogola wax warbaahina in telefishin laga daawado ma ogola raadi in laga dhegeysto ma ogola xataa meelaha qaar teleefanadii oo mirida laho wax lagu dhegeysan lahay waxay dadka ku duubtaan sida aad ka warqabto ayay dadka ka jejebiyaan oo u ogoleen maxay rabaan dad dhegala oo ayaga waxay u sheegaan maaha waxba kala maqlayn marka kuwa meelahaas oo kale jooga meelaha kookooban oo ayagu ka taliyaan waxaa weye hadda wacyigelinta ma gaari karto laakiin dadka magaalooyinka iyo yani fursadda helaya runtii aad baa loo gaarsiiyaa xafiiskan kaliya maahay waa wacyigelintu way socotaa culammadu mar walba way ka hadashaa idaacaddan iyo telefishinkan iyo oo s n t v iyo raadi muqdisho barnaamijyo fara badanaa ka baxa oo dadku ay dhegeystaan mana aha 2010kii dadku siday ahaayeen iyo 2011kii iyo 2009kii iyo maanta isku mid ma aha aad bay qofku dadku wacyigooda usoo kordhay ulana socdaano waxaan xataa midka oo wax bixinaya wuxuu ogsoon yahay in yani waxaa waye cabsi iyo adduunye jacayl iyo intaa unbaa keenaysa iyo iskaashi bulshadoon jirin annaga waxaa naga maqan haddaan nahay dadka gaar ahaan soomaalida dhanka koonfurta ah waxaa weye waa iskaashi bulshadeed ma jiriyo hal qof ayaa waxaa laga yaabaa inuu ninkaa hadadaayo dhowr qof baa halkaa taagan oo amba ganacsi kule hadday intooda soo baxaan waryaamaada hadda oo la qabto baa waxaa lagu sumi karaa gacanta dad markay arkaan dadkan inay soo wada istaagayaan hal qof ama labo qof ma u imaan karteen laakiin nin walba iska aamusa wuxuu leeyahay aniga maxaa saaqhay gelin wax la yidhaha la samaystay marka taas markaasa waxaa imaanaysa in kaana dhinaciisa looga cuno midkaana la cuno
midkaana goonidiisa loo cuno hal wiilaa ka wada qaadayo yar waa wax hal mar ay sidaa u qaban karaan marka waxa weye waa dhammaantoodna waxay isugu imaanayaan cabsi waxaan leenahay marka cabsi ilaah baa le in laga cabsado ilaah baa xaq u le dadku inay baraarugaan oo waxyaabaha khatartaana iska dul qaadaan waxyaabahaas ficlan way sahlanta haddii ay jirta wakti adag oo jiray maanta waxaa weeye dowladnimadii iyo nidaamkii iyo hay-adaha amnigii baa kobcay waxaa weeye waa yani qofku haddii mar uu gaarsiiyo oo gacmihii waxaa horaa laga qabanayaa waana runtii waxaa weye way ka sahlantaha waktigii hore wakti ka fiican oo fursad ayay haystaan bulshadu baraaruga un baa ka niman waxaan leenahay arrintaas ku baraaruga waa maasantahay sheekh cabdullaahi barnaamijka qeybihiisa dambe ayaana kusii siqeynaaye haddii aan ku weydiiyo waktigan la joogo ee dunida waxa ay mareysaa in inta badan wadamada caalamku ay ka jiraan falalkaasi argagixisnimo la xiriira iyo fikradahaasi qaldan oo bulshooyinka lagu duufsado oo kaleento way jiraan dalal badan oo iyagu ku guuleystay inay ka adkaadaan fikradaha sida dalka ciraaq oo kaleento waxaan ognahay marxaladihii dalkaasi uu soo maray tan iyo dhicitaankii dowladdii dalkaasi ka talinaysay Saddam Hussein uu hogaaminay wixii ka dambeeyay dalkii burburay dhibaatooyin ayaa galay Daacish waa loo awood sheegtay dalka ciraaq si awood ayaa looga saaray marka aad fiiriso falalkan oo adduunka ka jira Soomaaliya marka aan u eegno sideed is leedahay bulshooyinka meel kasta ha joogeen ama Soomaali tusaalahan aan u soo qaadanay ay iyagu isaga dulqaadi karaan si wada jira oo iyagu wajaha afkaar midaysan runtii Soomaalidu waxay ka mid tahay horta waxaa ku dhacay dalkeena burbur oo dowladnimada la'aantii ay ku raagtay oo ilaa muddo ah waxaad moodaa qolooyinkaas ayaga naftooda way burbureen laakiin dhaqsaba yani dowlado ayay heleen iyo awoodo kale oo masalan hadda Daacish waxyaabaha aad iyo aad u jabsho Suuriya iyo halkaa waxaa weeye waa dagaalo caalamiha lagu qaaday si caalamiha loola diriray Ciraaq iyaduna deegaanadeedaas iyo waa xooga ayay saartay runtii waxyaaba ugu adkaadeen waa isku duubni waa bulshadii iyo yani nidaamkii dawliga ahay oo wada shaqeynaya bulshadii oo la shaqeynaysa dowladeedii oo shacabki iyo dowladii oo iskaashaday dhibaatadii arkeen waxyaabaha ka dhacay oo Ciraaq annaga hadda dalkayna maba saas maba uga dhicinba haddii laga reebo qaraxya oo xoogaa mararka qaar dadka gilgilay magaalooyinka waaweyn oo ayaga dhanba la baabi'iyey oo hadda quwada waaweyn ay ku kor dirireen oo dagaal iyo alqaacida ay ku dirireen runtii waa aad bay nooga dhibaato badnaayeen laakiin markay arkeen dadkii dhibaatada arkeen waxay go'aansadeen inaysan jirin meel lagu badbaadayo marka waa in kooxda la iska dul qaadaho meeshay ku jiraanba farta lagu fiiqaaho sida marka iskaashi shacabkii iyo dowladdii iyo dadkii kaloo kaalmeynayo oo ciidamadii intaasba runtii inkastoo weli waxyaabihii dhuumaalaysiga ay ka dhex jiraan haddana waxaa weye waa sidaas masaa qabtay annaga waxaa nala gudboon marka waa iskaashigaas iyo midnimadaas oo shacabkeena iyo dowladdii wada shaqeyn iyo is-aaminaado inay dhex marto oo hay-adihii dowladda dhanka ammaanka iyo shacabka iyo wada shaqeyn dhex marto runtii meelay ku gabadaan ma heli karaan markaas meelay ku gabadaan ma heli karaan marka waa inta naga dhiman waa intaa kaliya inta naga dhiman waxaa waa intaa waa sida laba noocna in lagala dagaalamo dhinaca fikirkii lagala dagaalamo dhinaca yani awooddii ahayna lagala dagaalamo meelaha ay joogaanna laga saaro waxa meelaha ku dhuudhumanana gacan bira lagu qabto yani wacyigelintii bulshadina ay socoto labadaas haddii la isla helo waxaan isleeyahay waa laga adkaa karaa waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh cabdullaahi daawadayaal guud ahaana barnaamijkii samawade oo idinla socodsiinaya anigoo hal cabdulqaadir cali ayaa intaana kusoo gabagabayneynaa waxaa barnaamijka maanta igala qeyb qaatay sheekh cabdullaahi axmed garuun oo isagu markaasi ka tirsan xarunta aragti isdhaafsiga ee irshaad tan iyo barnaamijkan lacayn aan ku kulmi doono hadduu allah awoodo sare leh u ogolaado waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo salaamu ullaahi calaykum aad baad umahadsan tahay insha allah